بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaan jeclahay maanta ama caawa ay taariikhdu tahay bisha Shawaal 22 maanta 22 bay ahayd laakiin caawa waa 22 sanadka 1447 oo waafaqsan 10ka bisha ama 9ka bisha afraad 2026 laba qodob baan jeclahay inaan ka hadlo labada qodob mid waa wax gaar ah oo dad gaar ah oo la jeedo midna waxa weeyo ninka la yiraahdo Sheekh Cali Wajiis baan arkayay kaliib uu kaga hadlahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka oo uu leeyahay waan taageersanahay dawladda federaalka ah inay maamul goboleedyada ay meesha ay ka saarto macnaha xasaas hadalkiisu dhacay maamul goboleedyada ama nooca federaalka ana uu leeyahay anigu ma taageersan wali marka shay macluum ah oo Soomaalidu ay isku ittifaaqsan tahay iyo ka hadlay oo waxa la yiraahdo federaalka Soomaaliya meesha looga soo sameeyay iyo xilligii la soo sameeyay iyo cid soo sameeyay waa la yaqaan markii 30 sano ama 35 sano hadda laga joogo dagaalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay burburtay oo intaas soo shir la qabtay oo lagu kala fogaaday baan noocan ka kabka ah ee federaalka ah oo aan xeerar fiican lahayn yaa loo soo sameeyay Soomaaliya intii bay dhowr iyo 20 sano ay ku socotay iyadoo lafteeda sida saami qaybsiga loo qaarkeed la sulugsan yahay iyadoo oo qaar Soomaalida qaar lagu dayacay qaar lagu liiday si macnaha wax Soomaaliyeed ba marka hore ma ahayn taasi markaa ku noqod ma laha nooca federaalka haddii aan iskaga tegayno oo aan dawladda markisiyo dhaxay aan samaysanayno waa wax Soomaaliya ka go'a laakiin sheekhu waxaad moodaa inuu dhiil garaacayo colaadeed ama marad dhiig leh uu hurgufahayo oo uu leeyahay maamul goboleedyada soo haray afarta labadan Guudlaawi iyo Qorqor hadii yeeli waayeen in iyaguna la mariyo sidii Baydhabo kadibna Jubbaland iyo loo la aado Puntland Ethiopia wuxuu u lahaa waan uga mahadcelinaynaa dawladda Ethiopia in ay maanta ay tiri idinku faragelin mayna maamul goboleedyada waxa aad ka qabanaysaa sida Baydhabo oo loo soo galay oo kale Sheekh Cali marka waxaan dhihi lahaa Sheekh Cali horta Kamboni rag badan oo Soomaaliyeed baa ku dhintay dawladda federaalka iyo dawladda Jubbaland buu dagaalka ku dhaxmaray dad fara badan oo aan inaga bixin xaaliyan 2026 iyo meesha inaga leeday wax foolxun baa ka dhacay wax ku faraxsan ma jirin duulaankana dawladda federaalka qaatay waxaadna ogaataa meesha Ethiopia ma joogin wax inugu weheliyay ma jirin inagu baa isku lahaynay Soomaalida dagaalkaana waa ka xunnahay kumana faraxsanin dhig Soomaaliyeed inuu maanta iyo mar hadda iyo ka hor iyo mar daba midna u daato ma ribno marka waxaan ku dhilahay adigoo nin culimo ah oo waliba hay'adda ama dalladda culimada ee sare ku jira maanta in aad colaad aad abaabusho oo aad madaxweynaha iyo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka aad isku dirto ayay bay kugu tahay Ahmed Madoobi iyo ninka la yiraahdo Siciidani iyo hogaamiyaal baa la dhigay madaxweynenimo ma aho dastuurku waa la bedelay dastuurkana dad ugu qiimo weyn baa uu kugu fadhiyaa sida ka muuqata adeeros hal waxa la booli aniri hal booli ah nirig xalaal ma dhasho baalkan marka horena waa la soo sameeyay haddana madaxweynaha sameeyay wax ka bedeshay lagu ma raacsano ama hal u raaco qiimo aanu agteeda dastuur ayad quraan iyo ma aho ku wardin mahayo laakiin waxaan ku dhilahay Sheekh Cali oo sheekh baa tahay diintaadii dastuurha uga xalan horta koow oo ayad quraana inay sheegtay isku dayin inuu yahay waxa dastuurka leedahay waa la bedelay oo sidan magacana lagu soo qoray magaca ma hogaamiyaha la yiraahdo ama gudoomiyaha la yiraahdo ama madaxweynaha la yiraahdo ama wax kale loo bixiyo wixii heshiis lagu yahay Soomaaliya heshiis ku tahay oo walaal ay lagu yahay dawladnimadeena ilaalinaya anagu hadda qayla kama wadno laakiin aad waxaad moodaa in aad wax kale uu ku dheer yahay walaal marka waxaan ku dhihi lahaa far dheeraatay ha noqonin
culummada Soomaaliyeedna afkeeda iyo magaceeda ha halaynin ummadda Soomaaliyeed wax xanaf leh oo isku dira ama dhiig daadiya marhamo xagga gada laga wareegiyo hebel laga wareegiyo halkaas doorasho lagu qaban iyo waxaasi wixii qodba sira ah way iska ninkii iska banaysanaya asay u taala laakiin madaxweynaha culummada Soomaaliyeed waxaan u malayn haddii uu yiraahdo 10 sano joogi 20 sano joogi inayna hadalba ayna ka keenin Soomaalidu laakiin waa inay heshiis ku tahay maxay yeelay culummadu kaalinta inay qabsatana marto laakiin wadanka in qalalaasa la geliyo iyo boob iyo dil iyo dhac iyo wixii aan soo marnay aan 35 sano ciqaab ahay soo marnay marno hadda kuwan dhalinyarada la dirirahayo dawladii iyo maamul goboleedyada kullu ay hayaan oo dhowr iyo 10 sano ayaa la dhaqaajin lahay lagu kadeeday marka colaad Soomaaliyeed kuwaas wax naga dameeya aan u baahanahay tu hadda cusub oo kowli ma rabno على الإسلام بين تحابك برتوي قاعد ويدي كوا كلا دونت علي وعلى ديه ورا هدي أتكبر ويدي ما هذا توكل أتقاضيسه أنا قد سيرة هذا هرنا مقرق بدنا دي الرا وأنا كم عاير ربي لكن حتى أنا هيوم دولتي محمد سياد برا مركز سياحي يعطينك حق بدل الله إن فدوان يسي حتى إن lagu bixi karo oo bangiyadeeda iyo waxeeda la qaysan karo hatta kulli inaad dadkii culimada baa nala joogo oo noo sheegay hadda magaca jamaacadu kuma hadlay sidoo hadda jamaaca kama tirsan itixaad waa laga eriyay waxa laga eriyay noocan qabaliga ah iyo laablakaca ah iyo maartay haliilkan aad haliilayso yaa laga eriyay itixaadkina waxa ku dhilaa markaa warniyahow ma rabno in adigoo culimo ah oo magac dalada culimada xafiiskeedii fadhiya in aad haddana waxaan ummadda Soomaaliyeed kala geynaya hari qoyan inaad jiido ma rabno walaalow ha noqonin siciibul cadahay maalintina looda cawska ka gubahayay habeenkina xareeda ka gubahaya noqonin federaalkana dhaar dhow baad fadwoon doontaa inay daalimad yihiin adiga uma laga sugi haddana maartay waxa aad u ololeynayso waa wax aan qurux badnayn dadka Soomaaliyeed isku soo jiid bay u baahan yihiin walaalayn bay u baahan yihiin wax ay iyo wax dil waa laga soo baxay siday yihiin qabiilkuna meesha joogi u mahayo uu kala tagay adiga oo abgaal kala reebi doona lagu arki doona iyaga laftooda ee kala qaadqaadi doona waa basal Soomaaliya maanta wadaad مسألة حماية وما بحنا Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay gamca nadiif haddii aad nin nadiifa tahay maamul goboleedyadii madaxdoodii iyo dawladda federaalka ay xamar bay iskugu imaadeen markay kala boodeen maxaad gamcaha u qaban weydeen oo u dhihi weydeen culumaad ahaydeene war annagaa miyir qabnaa annagaa musaalaxada ka shaqaynaa annagaa arrintan idin miyir qabnaa idigu wax doon baa tihiin nin walba waxbuu rabaa annagaana waxba rabin jooga oo maxaad u dhihi weydeen u maslax weydeen ood gamcaha u qaban weydeen marka waxaa la dhihi jiray doqonta marna afkeeda xan baa saaran marna xaab baa saaran markii musaalaxada iyo dowrka aad lahayd maada gudanin maanta markaa inaad col u dhabaaliyeyso oo aad col kiciso oo fidna aad kiciso Jubbaland waa nabadgelyo gadana ma aha meel halaq galeen oo nin walba uu iska gala ma aha waa dad mustaqbalkooda iyo dawladnimadka yaqaana waa dad ikhyaara oo la yaqaano laakiin meel loo soo dhunto oo laga dhaar dusmayso ma aha walaal waxaan ku dhilahaa dawladda ha u masala habaabin madaxweynahana dadka ha ku dirin madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee qaranka ha u masala habaabinin wadaad xumaha u noqonin ciidanka qaranka ee dawladda Soomaaliyeed ee ummaddu ay ciidan ka dhiganayso dadka ha ku dirin harag waraaba ha saarin harag shabeel baa la wareegaya harag shabaal ha saarin oo ciidanka Soomaaliyeed inay dadkoodu nocaan ka shaqaynin ciidankaas waa ciidan qaran ummadda Soomaaliyeed baa rabta dawladnimo rabnaa nabadgelyo rabnaa wanaag baan rabnaa sharci islaam baan rabnaa
خير بان أوصقينا إن ودا كانوا إصلاحان رمنا بارهن إنا طبعا رمنا وحا خير إن آن هلان دورينا ودا كانوا نبتقليه ونقول يا جوي يبضبع عن مرنا رمنا إنا نولانا رمنا لكن ولا ذو حتى المالين والبا آد سوق عادته عداد هاري الشبه المالين والبا سوق صارته ومالين والبا آد مارتي الدولة ده كدح كلو ما يسطو ولله بأس راقد هذا هي اسكو دير الآن بعد نولي أول بين دولة ده اسكو معمول الله اسكو معمول الدولة ده اسكو دري إلهي كفشو عيد ده لقانا يلي ما هي أفعل ما ينادكو هذا الشو إنها أفكار كو هذا شو أسورة قل أفه قامي كو حد كو هذا أفقب قبل كو هذا أفقب إلى هذا دون كو هذا أنا وكاعل منه شخص مو واحد بلان أو عنده لها يا كافي وكفى الله المؤمن القتال وياه لكن أنا تاريخ هذا هذا كو كسب بالله ما هيو ومعنا وحاول من ستر مسلما بان أنت سوكدين ولا لو هنو قصبين إن شيغنو وحاتاي إن شيغنو هنو قصبين عيبت هذا ندتك مال كفريسو دينتنا إيه علماء نمت كانها خلدن ومدى كتاب القرآن كله من سود الجيل المرة هذا الدولة هو حكمه إن ترى هذا السنة تبيت هاي بنجي هذا الله وحين كرا قبيل هبل إن ساس الله سماه كرا إمام القبليات كساس الله سماه كرا ولا لو علم هذا وينها دين الإسلام بما واحد أتكفض وانا يسام والأمة الصوماليات دولة باهبة وقبتها لكن دولة ده هقدرين ضدك نصيحة حمتي الدولة ده هقدرين ضدك هذا والله طبعا أما مدحوينها هنو جوجو أساها هنو جوجو كوكلا هنو يمادو أنه waxaan rabnaa wadankaas oo qalalaasa iyo qaylo iyo dagaal aan la gelin nabadgelyo rabnaa waxaan maqlahay adigoo leh madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wuu bukaa waa isbitaal buu baahan yahay dawladdiina way u diiday inay diyaaradihii ay u furto waxaan codsanayaa in odaygaasi waa oday soo shaqeeyay dawladda ay isbitaal geyso oo waxa saacadahay hadda miyaad habartamaysa markaa yaa ku waxyooday oo ku yidhi ninkii uu bukaa bal waxa ma afkaada walama tahay haddii ay rag wax isku hayaan adigu ma waxa tahay sameeyay aniga raacayay markay ay insaarxiyaan iyagoon irmaanay raacay miyaa tahay waxa adiga ka galay labada nin ee wax ka dhaxayaan ee waxaan sameeynay iyo waxaan sidaan laga dhigo haddaadan adigu sulux iyo isku soo jiid aad sameyn karin ma afkaada haysatid أفكار ما هي ستي والولاد يهو حنا برين إن سيد هذا قوة لنا بهلك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.